بسم الله الرحمن الرحيم. marka koowaad waxaan salaamayaa madaxweynaha Puntland iyo madaxda kale golayaasha. mar labaadka waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa madaxdii iyo taliyayaashii soo dhaweeyay deegaanka Puntland oo ugu horeeyay jananka ciidamada General Yaasiin iyo saraakiisha qaybta sagaalaad oo iyana uu hogaaminayo General Abdullaahi Umar Ashuur iyo Cornel Hussein iyo Cornel Abdirashiid. aad iyo aad baan idinku mahadcelinayaa inta markaan ka imaado anigoo ah gaashaan la dhaxay Sahal Faarax Raage ahaana xeer ilaaliyihii maxkamadda sare ee ciidamada Somaliland. waxaan maanta doonayaa halkan inaan ka cadeeyo in aan qodobka koowaad aan ka tanaasulay jagadii madaxweynaha Somaliland uu magacaabay 16 bishii koowaad oo ahayd xeer ilaaliyaha maxkamadda sare ee ciidamada maanta laga bilaabana aanan ahayn. waxaan kaloo iyana doonayaa inaan cadeeyo xubinnimadii ciidanimada ee sarkaalnimada ahayd ee ahaa gaashaan la dhaxay Sahal Faarax Raage ee ciidamada Somaliland iyadana inaan ka tanaasulay. waxaan kaloo iyana cadeynayaa in aan ku biiray ciidamada Puntland hadda wixii ka dambeeyay insha Allah taala aan ka shaqeyn doono kulay toolada kuma birin horeba waan u ahayo qalbigan ka ahaa laakiin hadda laga bilaabana si toos ah ayaan uga howlgali doonaa insha Allah taala. inta ayaan doonayaa inaan cadeeyo runtii kulay way jiraan sababuhu oo maxaan maleynayaa maanta la oran maayo maxaa loo tagayaa xagee loo socdaa lama dhahayo wax waliba iska cadiyeen sababtoo ah waxa weey dadku waxay ku heshiiyeen dadka dad isu tagay bay ahayn Soomaaliland haddaad maqasho waa dad isu tagay oo kama baan dhaqan ahaan custom bay isugu tageen iyo dhulku ka dhaxeeyay heshiiskii la galay 1990kii gabi ahaanba Sandin baa lagu sameeyo daaqada laga saaray maadaama daaqada laga saaray wax kale oo dadkii markaa isugu haray ma jiraan. kulli qodobka koowaad aan uga tanaasulay uga tagnay waa kaas mid walba dadku isir ahaan bay ku abtirsadaan oo ka soo jeedaan nin walba marka halkiisii maadaama heshiiskii meesha uu ka baxay in uu ku biiro xaq buu u leeyahay. mar labaadka waxa kale oo jirta anagu gaar ahaan qaybta cadaaladda ka shaqeeya maadaama qaybta cadaaladda ka shaqeeyo qofka cadaaladda waxa weeye waa inay noqotaa legal waa in lagu dhaqmaa. runtii iyada laftigeedana madmadow badan baa ka jira sababtoo ah taliyaha ciidanka Somaliland General Nuux waxa weeye iyo askariga si isku mid ah waa inuu sharcigu u qabtaa. taliyuhu madaxweynaha oo arka madaxda qaranka oo wada aragta ayuu dambi si toos u galay oo muxuu ka sameeyay separation of military wuxuu kala saaray ciidankii hab qabiil buu ku kala saaray xaq wuxuu u leeyahay taliyuhu in lagu maxkamadayo waayo ciidamadii bariga Sanaag waxay waa iska tagaysaa taasi waxay noqonaysaa qabiilkaasi hataw ama qabiilada noocaas ha tagaan waxa waajibaadka sharcigu markaas uu rogaya in la hor keeno maxkamadda lana maxkamadayo maadaama marka taliyihii ciidanka aanu dambiga qabanin askariga quriga lagu qaadayo taan lama dhihi karo cadaalad. qodobka labaad aan uga tanaasuleyna waa ka kulli toole insha Allah intii ilaahay kulli nagu aan ku dadaali karno in cadaaladu ku dadaalo way fiican tahay. waxaan leeyahay kulli dadka reer Sanaag waxaan ugu baaqayaa kulli waxaad moodaa in idinka la idin tastay idinkuna daawadayaal ka tihiin waxyaabaha idinkaga imaanaya dawladda iyo maamulka Somaliland waad aragtaan waxa idin haboon waxa la ninku yiri sinaan mayno sidka waa wadaagtaani adna diisareentiisa inaad tashataan bay idin haboon aan idin soo jeedinayaa. aad baan idin salaamayaa. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.